magacaaga iyo sida ku dhacan basharaxaad naga sii iyo maqdada jirta magacaygu horta waa Faadimo Cabdulqaadir Xasan magacaygu waa Faadimo Cabdulqaadir Xasan ahaanteedana waa 19 jir sida horta waxa u dhaceen waxa dhacday galbaha kamid ah ninka lagu magacaabo Jibriil Cabdi isoo telefoon kareeyay in badan waxa maanta isoo telefoon kareeyay Jibriil Cabdi wiilka lagu magacaabo in badan nationkaygu asiga aqoon jiray laakiin muusan aqoonin hormuudkayga galbaha kamid ah ayo nationkayga anoo xaafadeena soo wacay xaafada aanan joogin kama qana xaafad kale Balaxia joogay hormuudkayga goor walaashay soo siisay markay soo siisay way soo wacay lambarka Afrika ayuu soo wacay labada lambarada hormuudkooda ma wada aqoonin markuu soo wacayaan ka qab telefoonkiisa waa markaan dhahay isu ka sheegay markaas aan dhahay in maxaad rabtaa wuxuu igu jawaabay in barnaamij alaab yar aad soo qaadaysa wuxuu dhahay gaariyan ku soo diraya soo raac gaariga salaada si soo qaad markaas ayaan ugu jawaabay maxay tahay alaabta ana ku sheego doono gaariyan ku soo dirayo ku adkaysto markaas mar kale aan ku celiyaan dhahay gabdho kale aad garanaysid baad u dirsatid alaabta wuxuu dhahay hadda gabar kale tad igu dhow alaabta si soo qaadi karto adiga ahayn ma jirto kadib maxaan dhahay waan ka ogolaaday hayaan dhahay gaariga ayuu ii soo diray waan soo raacay gaarigii sidoo ii soo waday wuxuu keenay Exfiore anigoon ogeyn halka laga wado iyo alaabtu waxa ay tahay Exfiore markii uu keenay waxaan soo galnay guri ninkii darawalka ahaa wuxuu ii sheegay gurigaas soo jeedo albaabkiisa uu furan yahay ee gal ayuu ugu dhahay kadib waan galay gurigii markaan galay Jibriil iyo Afrika meesha wada fadhiyaan arkay Jibriil albaabka agtiisa taagnaa Afrika meesha fadhiyo ku qaylaayay bas markaan gudii u galay Jibriil isla markii albaabkii ayuu sakatooro ku dhigtay dabadeed Afrika meesha bistoolada iyaga soo taagay markaas aan dhahay Cabdil Casiis ma la isku ciyaaraya hadda maxay tahay bistoolada markaas uu igu jawaabay ciyaar ma hane waa dhab markaas aan dhahay maxaan iga haleeyaan dhahay oo bistoolada maanta igu qabateen markaas ay igu jawaabeen wax walba maanta jaanis aan ku heesanaa wax walbana waan ka sameeysan karnaa inaan adigu waxa tahay qof kibir badan oo isla weyn markaas aan ugu jawaabay aniga waxa meeyhi xilli maqrib ayay ahayd waxaan ka codsaday inaan salaada maqribka aan tukado way ii ogolaadeen horta waan tukaday markaan salaadii tukaday ayay qol fadhi ah meesha joodar soo fidsadeen dabadeedna alaabtii ay ku qaylayeen meesha geysteen kadib Jibriil Cabdi sidoo sheegay wuxuu rabay inuu shaqo aado habeenka shaqo ku qornaasan filaayo soo asiga afkiis ka dhawaajiye dabadeed markaan meeshii aan ku tukaday wuxuu dhahay soo bax halkaas tagan kaasaan dhahay ma yaan dhahay aniga markaad idishaan halkaas idgeysanaysaan ilaa wax walba horta way dhacaan markaan ku adkaystay in badan ay darbaxshay ugu dhigteen markay ugu dhigteen darbaxsha madaxii idil ay wareeray way qabteen meesha joodariga lagu tuuray Afrika meeshu fadhiyo bistoolada madaxayga saaray Jibriilkina sidoo doono ay geeshtay uu baxay dabadeedna markuu baxay Afrika meesha ku soo haray anigoo yaaban wax sameey aan garan la sharafteedii uu ku tantay hadana waxa la gaaray xilligii cishii waxaan ka codsaday inaan cisho soo tukado waan soo qabastay cishaan tukaday dawlad wuxuu ii keenay Afrika casho markaasaan dhahay aniga casho ma cuni karo waxaan u baahanahay inaan xaafadeyda aado markaasoo dhahay xaafadaada hadda ma aadaysid waad aaday laakiin hadda ma aadaysid lagu dhahay kadib waxaan kala ka codsaday xaafad kale agtiisa u dhow inaan aado wax yar ka soo qabsado markaasoo igu dhahay si aan ugu baxsado ayaan u dalbadina xaafadaas kale aan aado markaasoo igu dhahay maya aniga igama aqli badnidooda inaad iga baxsataa doonaysaa adigu kadib waa iska dhaafay meeshaan iska fadhiyay si u qaylay asiga maray 6 saac soo dhaweed ayuu asiga qaylaadiisii dhameystay kadibna bistoolada asigana sidoo kale ugu qabtay sidoo doonan iga yeeshtay iyadoo saas ay tahay adana Jibriil mar kale dib u soo laabtay xilli 7 saac camal ay ahayd aniga marxalad ku sugan marxalad aad iyo aad u adag ay tahay aan saan isku dhaqaajixta aan garan kareenin dabadeed Jibriilka hadana mar kale soo laabtay sidoo kale subaxdii waxaan soo baxay aniga aan socon karin
dhibaatada haysan ilaahay ogaa markaan soo baxay ayaan waxaan imaaday xaafadeedii baagsiyaan tegay markaan tegay alaabta soo qaaday meesha ka shaqeynaysa alaab horta weli maanan usoo qaadan oo alaabtii meesha laga soo qaaday lamaysan ii sheegin gaariga oo keliya waan soo raacay adii idaacadda u shaqeynaysa markaas idaacadda ma ka shaqeynayn kadib bacdal soonaan idaacadda STN tegay anigu haddeertaan waxaan u shaqeeyay idaacadda codka haweenka ee Kasma Radio كل أنا وحن هاد أنا أتصل لها واحد هاي إن لمن كان دبعت ضرت إيكستي ورت ما أنت دب كل إيكستي هذا إن شرفتي دي ورت دب مصولة وانا سكو متى ذاك الحكتو إن وحن قبل مية أهل قرب من أهل أنا ما أنا بكرسني أيوة كنت بجيب واحد عبوين مقد بشيء واحد دعوينا ما نقول إلا ما لا أقول بس درت الدعوات ملهن والد كاي ولا هم مشغلت دبكم قاري والدكي كان أشياء ورت عدي ذكرنا ما بشي قرنا كم بحضر dhibka hadii gaar mid ka weyn inuu gaaro xitaa macquul ah dhanka waalidka cunaqabteen far badan la saaro ilaa hadda uma aanan sheegin anta ay hadda fariintan maadaama warbaahin gudbinaysid maraya waalidka inay maqlaan oo raasas lagu saaro waa macquul way dhici kartaa taa markay Afrika shaqeeya hadda Afrika Radio Muqdisho shaqeeya dhanka kalena sida lagu tilmaamo aniga ma huwa inuu nin sarkaal yahay dhanka biyaska oo noo sugu dhawaaq munaadir dawladda Jibriil kunta shaqeeya Radio Muqdisho iyo cameraman oo yahay أخوان تلاقي أولاد غير مفرح والله هرت إن جبريل كأني وحنا برتي كودي لولي ما انتهت وحنا كبرتي ما أنا برلنا هين محمد أبو بكر ما أذا أنا ما أنتص أنا وعي ريدي مقدشان شقة كرادينا أنا وشقة رادي سهر مركان وعي إن ما أذا وحود هاي ويل كسم قوس ودرا الباب أساك سوق بناي هاي عنده يصدر نيشن كي يصير كهلي كده وقيمة جبريل كي وحول لها وقف نفسه نموت كي جماعة نصين إن بدنا نيشن كي وإسكي هستي نيشن كي يقصوا بيعجل مرنا جورو لاش إسقي وجل مرنا أنا هست نيشن كي كده بعدي ما أنت تنضم بفرصات كهلي إنه نيشن كي ونموت كي يقصوا هلا سلاسون يقصوا وعي جبريل نفط ما أنت صنبرت أقوان كلا تانو ليه هم عبد العزيز أفريقيا كورها ما كقانا لكن أصيغنا أقوان هدوكوني أن أوليه هنيك صبيرتي ومجرتو مستقبل كاي قبل ماذا يقول يعني ها هذا ما كوصلش الدولة دي هذا أمني هذا ورت إن مشان دولة ترتضوي نولا لطي دولة محن وجباق لها إن أي عبد العزيز أفريقيا بيني كان لهم مقاومة جبريل عبدي أي وحكة قبطان مرحلة دي قبلها كل وقتين عيان إن بدل لقي يابي إن قبل كلا تاني إنسان كل وقتين أما هرو وصل وقتين ما دام هذا المستقبل هو يا ري بدنا نوجست دول ما كوصلش إن أفريقيا كوصلش دولة waxaan ka codsanahay inay wax ka qabto Cabdi Casiis Afrika inay maxkamad soo taagto